waa dhab waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا جالاyaal iyo johradooyin waa ninka Cabdulkhaaliq Macalin Dhuuxyaraha maanta waxaan idin hayaa sheekooyin cajiib badan waxaan idin leeyahay marka horeeto waa dhab waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV aad ayaad ugu mahadsantiin jaalayaal iyo johradooyin daawashada aad daawataan fiidiyowyada Dheeman TV sheeko xikmad badan baan maanta idin hayaa sheekadaas wax ku dhacday oday Soomaaliyeed odayga Soomaaliyeed magaciisa waxa la yiraahdaa Faarax Diinle sheeko cajiib badan baan idin hayaa Faarax Diinle maxaad ahayd xilligeebaad noolayd sheekadaadu maxay ahayd waxaas oo dhan waan idin soo wadaa intaan u gudagelin barnaamijka waxaan idinka codsanayaa dawad garanaysaan qofkii nagu cusub subscribe-ta dhac ka si like comment WhatsApp-yada iyo group-yada Facebook-yada iyo WhatsApp-yada inaad ku share garaysaan oo dhammaan akhyaarta idinku jira WhatsApp iyo Facebook-ga aad la wadaagtaan fiidiyowyada Dheeman TV intaas kadib soo dhawaada mar labaad jaalayaal iyo johradooyin waa ninka Cabdulkhaaliq Macalin Dhuuxyaraha ee daadihinaya barnaamijka taxanaha sheekooyinka Dheeman TV oo mar labaad idinka soo salaamaya magaalada Kampala ee wadanka Uganda gaar ahaan waa garanaysaan meeshii iyada ahayd Ohio Garden qofkii tagay baa tagay garanaya dad badan baa soo weydiiyay Ohio Garden waxaan idinka codsanayaa please qofkii Kampala jooga Ohio Garden weydiiya ha yimaado kiseeyo oo dadka ha weydiiyo Ohio Garden kadibna indhihiisa ku soo arko ma aha waxaan ka sheekayn karo iyo waxaan sharaxi karo halka ku sharaxi karo intaasaan uga baxaya waxaan rabaa inaan sheekada toos u galo jaalayaal iyo johradooyin mar saddexaad soo dhawaada waxaan waa dhab waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV intaas ka gadaalnimayo waxa jiray oday la yiraahdo Soomaali ah oo waxa la yiraahdaa Faarax Diinle waxa la isoo gaartay Faarax Diinle inuu noolaa sanadihii dhamaadkii qarnigii hore ee 20aad iyo bilowgii qarnigii koylaandho dhamaadkii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad hadda waxa lagu jiraa qarnigii 20aad oo bilowmay sanadkii 2000 wixii ka horeeyay 1901 ilaa 1999 qarnigaas wuxuu ahaa qarnigii 20aad waa qarnigii dhaceen dagaaladii labaad iyo dagaalkii koowaad ee adduunka way ula baxeen reer galbeedka ula baxay moogtay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad oo dhacay sanadkii qarniga gudihiisa qarnigii 20aad qarniga 20aad bilowgiisa inuu noolaa ay soo gaadhay iyo dabayaaqadii qarnigii ka horeeyay qarnigii 19aad adoo 1890 meeyihii ilaa 1900 ilaa 1920 ilaa 1930 uu soo gaaray Faarax Diinle ninkan Faarax Diinle la yiraahdo waxa Ilaahay hibo u siiyay wax qaadida anu taa tuugnimo kuma tilmaami karo laakiin kaartada wax loo qaado oo wax loo bahalkiyo waa Ilaahay u siiyay hibo Faarax Diinle laba sheeko baan idinka hayaa oo labada sheekaba qosol iyo xikmad ay ku jidho qaabkii uu Faarax Diinle ku baxsaday marka uu wax ku helay Faarax Diinle waxa loo tiiriyaa inuu nin tuuga oday tuuga oo waxada baa loo tiiriyaa inuu ahaa laakiin dhanka kale markii laga fiiriyo qaabka iyo kaartooyinku wax u qaadanayo maba aha kaarto tuugnimo lagu sheegi karo laakiin waa qaab ka baxsanba maskaxda caadiga ka baxsan waxa ay soo gaartay in habeenada kamid ah uu Faarax Diinle aad u gaajooday oo gaajo badan ay qabatay dabadeedna ninkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan la oran jiray ee sayidka ahaa ciidamadii daraawiishta lahaa oo Ingiriiska la dagaalayay inkastoo dad badan oo Soomaaliyana uu ku tilmaamayay daraawiishii sayidku ay ku tilmaamayeen inay gumeystaha Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo ay la socdaan oo dad badan ka laayay oo Soomaaliya u laayay xoolahoodina uu qaatay laakiin sidaas oo kale sayidku wuxuu la dagaalay gaala badan ilaa ninkii Koofil oo soo boqortooyada British ka tirsanaa Soomaaliya u qaabilsanaa laga dilay madaxiisii iyo gacantiisii midigna magaalada Taleex oo xarun ahayd daraawiishta la keenay gabayga caanka ah oo sayidku lahaa adaa Koofil oo jiitay aan dunida joogin adiga jidkii lagu wacay jimcilahaaneed jahannaba la geeyo hadaad aakhiro u jeeto ilaa laga gaarayo tixda uu leeyahay darwiish jigraar nagama deyntan iyo jeerkiide anigana jigray ila heleen shalay jihaadkiide Ingiriis jabiyo waxa ku dhacay jaci baaruud
sayid maxamed cabdalla xasan gabaygaasu tiriyay baa la yidhahdaa markii koofil madaxiisa intii la soo dilay madaxiisa gacantiisa midig magaalada taleex la keenay kadibna waa tii Soomaaliya diyaarad lagu soo weeraray ciidan diyaarad magaalada cadan ee wadanka Yemen laga soo kiciyay lagu soo weeraray magaalada taleex lagu rusheeyay oo sida daraawiishta ay farxan ku noqotay ku kala burburtay sayidkii iyo intii ka agdhaweyna ee Itoobiya u baxsadeen mar raba inaan ku dhaaraado taariikhda sayidka waa halka ay la gashay laakiin taasi sidaas bay ahayd marka sayid maxamed cabdalla xasan mandatekiisu waxa 20 sano waxa la sheegaa 1901 inuu bilaabay maxaa la yiraahdaa ciidankiisii ay dhahaan daraawiishta ilaa 1921 ka sano mandatekiisu muddo xileedkiisu ahaa markaan ka sheekeyn doonaa daraawiishta insha Allah documentiyaan iyaga ka diyaarin doonaa sheekooyin ma ahan documentiyaan ka diyaarin doonaa haddii alla idmo insha Allah saaka Kambaale ilaahay waa noo nimceeyay maanta roob baa da'ay waa maqlaysaan de Ohio Garden baan anigu joogaa meel waxaan joogaa roobkuna uusan gaarayn naacawda iyo saxan-saxadana ay soo gaarayso qofkii tagay uun baa garan kara ayaysiis ma ah laakiin waa xaqiiqo jirta nimayo wax dhacday ninkii Faarax Diinle ahaa oo xilligii daraawiishta ay jirtay noolaa waxa dhacday in maxaa la yiraahdaa Faarax Diinle waa habeen gaajo xun ay qabatay kadibna wuxuu cuno oo cunno karsan u baahday dabadeedna waxa dhacday baa la yiraahdaa ninkii Faarax Diinle wuxuu yimi daraawiishta meeshuu sayidku deganaa buu yimi daraawiishta ilaalinaysay sayidku soo dhex maray tartiib u soo socday ilaa uu aqalkii sayid maxamed cabdalla xasan uu gudaha u soo galo ilaa aqalkii sayid maxamed cabdalla xasan uu gudaha u soo galo ninkii dhaan Faarax Diinle markuu gudaha aqalka u soo galay maxaa dhacay ileen islaantiisii uu sayidku qabay marka sayidkiina guduhu ku jira xaaskiisina gudaha ku jira markaas wuxuu u diyaarinaysaa casho ee rabto inay sayidku siiso markuu Faarax Diinle dhageystay sheeko waa mugdi waa gudcur waxa guriga soo gala iyo waxa ka baxa la arki maayo waa gudcur aqal weyn ee sayidku waa deganaamo dabadeedna markuu gudaha u galay cunadii islaantiisu u diyaarisay sayid maxamed cabdalla xasan buu ag fariistay ninkii Faarax Diinle islaantii baa cashadii ka soo riday hadee cashadii ka soo riday waa u keentay sayid saxankii cashaday is hor dhigeen waxay bilaabeen sayidkii iyo xaaskiisu inay cunada cunaan dabadeedna ninkii Faarax Diinle uu ag fadhiyayna isna wuxuu bilaabay inuu cunadii la cuno waa saddex markaa Faaraxoo meesha ku jira xaaskiis iyo sayidka iyo xaaskiisu ma oga waxa meesha ka socda Faaraxse waa ogyahay waa nin ilaahay wax kan hiba u siiyay dabadeed waxa dhacday jaalayaal iyo jooradooyin waxa dhacday haddii ilaahay ku idmaayay sayid maxamed cabdalla xasan waxa nin xoogaa intelligencegiisa ama maskaxdiisu ay sarreyso wuxuu fahmay gacan saddexaad inay saxanka ku jidho oo gacan saddexaad ay cunada wax ka cunayso sayid maxamed cabdalla xasan wuxuu dareemay in gacan saddexaad oo dheeriya ay meesha ku jirto dabadeedna markuu fahmay gacantii saddexaad buu qabtay dhab sayid maxamed cabdalla xasan baa gacantii wax cunaysa qabtay Faarax Diinle waa ninka ilaahay hibada u siiyay oo waxanba aysan dhib ku haynin isna naagtii uu sayidku qabay gacanteedii isna dhab siiyay markaas sayidku wuxuu ku yiri na gacanta mu ku hayaa naagtiisu sheegaya saytiri ha ila waa runteedo Faarax Diinle ayada gacanta haya mood iyadu waa runteed naagtii markii sayidku yiri na gacanta mu ku haysaa saytiri ha waa ay haysaa gacanta ay haysaa siida markaas sayidku siiday markaas isna Faarax Diinle isla markiiba siiday markii la siiday markaas haddana saytiri ha hadda waa siidaysay sayidka marka shakigii baa ka baxay because sayidka laftirkiisa waxa lagu keenay kaarta ka weyn baa lagu keenay sayidku kaartu leeyin laakiin mid ka weyn baa lagu keenay marka shakigii baa ka baxay ahaa qof saddexaad wax idin la cunaaya habeenka Faarax Diinle saasuu ku casheeyay habeen barki markaayna aqalkii waa iskaga baxay muddo kadib baa la yiraahdaa baa Faarax Diinle gabay buu u soo tiriyay kadibna sayidkii baa isaguna u jawaabay kadib ma sayidku u jawaabin markuu gabay u soo tiriyay Faarax Diinle gabay u soo tiriyay wuxuu yiri yaani waa kula casheeyay waa ay qabatay waana kaaf baxsaday waxba meesha kuma haysid
kadibna waxa la yiri sayid maxaa Cabdalla Xasan Daraawiishti waa amray wuxuu yiri ninkii Faarax Diinla hala soo qabto meelu joogaba waa xujoobay hala soo qabto ninkii Faarax Diinla waxa loo diray Daraawiish baa ku orday fardoodiiba ka xasan waa la soo qabtay ninkii Faarax Diinla isagoo markuu rabo sayidku qof inuu dilo wuxuu sameyn jiray xal jira soo qabtay hebel waa xujoobay kadibna waa la dili jiray Faarax Diinla la soo qabtay sayidka loo keenay ma garatay markii la soo qabtay ninka Faarax Diinla oo sayidka loo keenay isagoo xirxiran baa sayidku wuxuu yiri ka fura xariga sii daaya ma maqlaysaan Daraawiishay ninkii Daraawiisha oo Faarax Diinla qabta oo dila ama dhibaateeya isagaan dilaya oo dhibaateynaya ninka Faarax Diinla la dhaho far lama saari karo lamana dili karo ninkii Daraawiish oo Faarax Diinla soo gaarana waa inuu cuno siiya waa inuu wuxuu cuno siiya waa inuu biyo siiya hadduu qaadmo u baahan yahay in faraska lagu qaado meel loo qaado waa inuu qaada wax walba u baahan yahay Faarax Diinla waa in la siiya ninkii la sugayay in la dilo waxa bilad baa la siiyay bilad baa madaxa loo geliyay tawadana Daraawiishtu way duxneen sayidkayow maxaa saad ku tiri markaas wuxuu yiri tuug waaye Faarax Diinle tuug waaye ma sameesh ka soo baxday oo tuug waaye Faarax Diinle tuug waaye يعني وحلا يابي خبرته وwax ku bahalki gareeyay taas waa sheekada koowaad sheekada labaad uu Faarax Diinle leeyahay ahna meesha magacu ka raacay Diinle magaca Diinle oo ka raacayna waxay ahayd ya jaala yaal hadaad halka inta sheekada soo gaadhay daawateen oo aad leeg saar weydaan anu ma aqaa waxaad uga daleeyeen iska sii share gareeya gruubyada ku sii share gareeya WhatsApp-yada Facebook-yada ku sii share gareeya asxaabta ku soo barato channel-ka lagu soo yaaco sheekada labaad uu leeyahay ninkay dhahan Faarax Diinle uu leeyahay waxay tahay hadii Ilaahay ku idmaayo wax la soo gaartay in maalmaha kamida Faarax Diinle uu maxaa la yiraahdaa uu u baahday xoolo u baahday uu neef u baahday uu qasho uu aad u gaajeysna oo ama aad u duruufeysna uu u baahnay neef xoolo ah uu qasho uu u baahday Faarax Diinle baa soo gaartay hadii Ilaahay ku idmaayay ninkii Faarax Diinle ahaa wuxuu sameeyay diinka caadiga ah diinka anu de waxna ma dad badan soo daawanay Soomaaliya duran daafiyada jooga waxa laga yaabaa inaysan daaf Soomaaliga eraf Soomaaliyeed badan aysan garanayn war diinku waa xayawaanka Ingiriiska waxa la tortoise Carabigana waxa lagu dhahaa asulxafaat hadba saad u taqaano xayawaanka diinka asulxafaatka ama tortoise ama diinka hadba sidaad u taqaan oo diinka waxaan jeclahay sawirkiisa inaan soo saaro fiidiyowga kor oo aad arki kartaan diinka wadamo badan oo adduunka laga helo laakiin Soomaaliya wuxuu ku jira wadamada qaniga ku ah diinka Faarax Diinle wuxuu soo ka qaatay diin mar hore dhintay 10 sano ka hor dhintay oo maxaa la yiraahdaa qoloftiisii diinka intay gudihiisii de bolashay oo aboorku cunay ba qoloftu soo hartay waa ogtiin diinku wuxuu leeyahay qolof adag ma garato qolof adag buu diinku leeyahay qolofta adagi markuu diinku dhinto way hartaa oo de inta gudaha markuu aboorku cuno waxa soo harayo qolofta adag baa soo haraysa qoloftaasina markay banaanka oo laato qorraxdu ku dhacdo oo roobku ku da'o oo qorraxdu ku dhacdo oo roobku ku da'o ay muddo oo laato waxay noqotaa laf cad bay noqotaa waxay noqotaa sida lafaha u cadaadaan meelaha lafaha lagu guro sida lafa barkato garowe ninkii joogay waa garanayay lafa barkato meelaha lafaha lagu shubo lafu way cadaadaan laf cadaatay bay noqotaan lafuna way cadin marka diinka qoloftiisu marka hore waxa weeye caws amal aduga cagaar xigeenkaasi markuu qorraxda ku dhacdo wuxuu noqdaa cadaan qoloftaasi ninkii mii joogay baa garanayo arkay Faarax Diinle qoloftaas buu soo qaatay cadaatay oo weyn buu soo qaatay oo diina dhabarku ku soo qaatay hadduu qoloftii diinka oo cadaatay dhabarka ku soo qaatay wuxuu u yimaaday baa la yiri laba gabdhood oo timaha dabanaya oo ida badatay la jooga waridaha ma la garanaya maalin dhaweyd nin dhalinyaro ah wuxuu yiri buug baan qoraya
haddii la dhaho qof walba buug baan qoraaya oo iska dhaho wixii la doonaa la isku qoraaya ninka dhalinyarada waxa dhacday buuggu qoray Facebook la soo dhigay anigu waa arkay buugga wuxuu ciwaan uga dhigay dhaqashada ariga iyo idaha arab Soomaaliga Soomaaliga celiya dad badan oo daawanaya iyaga laftikoodu wax badan uma kala baxsana waa alla u sahal wuxuu ninkaas buuggiisa ku qoray hadduu Ilaahay ku idmaayo wuxuu buuggiisa ku qoray dhaqashada xoolaha ariga iyo ariga iyo idaha war iduhu waa qayb ariga kamida iduhu waa qayb ariga kamida boqolkii neef ariga waxa la yiraahdaa tiro ariga iday noqon karaan riyay noqon karaan ku isagu ariga ku wado waa riyaha laakiin riyaha iyo idaha waa ari la isku dhahaa waxba jida abaar caana Soomaaliya ka dhacday oo la oran jiray ari war male idihi iyo riyihi baa laga wadaa laakiin idaha iyo riyahana ari ha ku tilmaamin idahana gaar ha u xusin labadooda wax la isku yiraahdaa riyo wax la isku yiraahdaa ari kadibna gabdho ida badan la jooga oo dhowr tiro ida ah daaqsanaya la jooga oo daaqsanaya baa ninkii Faarax Diinlaha oo dhabarka wax ku wata qoloftii diindiinka dhabarka ku wata baa u yimi labada gabdhood iduhu badatay halkaas dhowr tiro oo ida aba halka u daaqaya waa xilli barwaaqo soorana ma garatay baa arigu u dooqayeen oo dhulku doog iyo nimco alla dhigay labada gabdhood marka geed meygaaga bay hoos fadhiyaan oo timaha isu dabaayaan midba midda kale timaha u dabaysa geed meygaagayna hoos fadhiyaan iduuna halkaas u daaqayaan dhaqanka Soomaaliga bariga horena sida maanta ma aha oo intii meel lagu balamanin ragga iyo dumarku isma dhexgeli jirin nin iyo naag markay isku shucaansanayaan xoogaa u dhaxayn jirtay xoogaa adigu laba talaabo kaleete baa u dhaxayn jiray laakiin maanta ma rabo inaan ka hadlo dhamaanteen waa aragnay waxa beeraha xorriyada iyo meelaha dalxiiska ka socda dad rag iyo dumar inay haasaawo u tageen af Soomaaliga saxda ah ama quman waxa yiraahdaa haasaawo u tagay waxa ka jira ma rabo inaan ka hadlo ku dheeraado adigu nin iyo labadii gabdhood timaha dabar ay geed meegaaga hoos fadhiya Faarax Diino dhabarka wuxuu ku wataa qoloftii diindiinka baa u yimi uma soo dhawaan xoogaa buu jiray laba sababood dartood sababta koowaad waa dumar oo waa gabdho timihi u qaawayn halka fadhiya inuu cawradooda arko waa ka xushanay isna waa nin weyn oo odaya mideeda labaad inay surtiisa ogaadaan ma rabo markaas gabdhuhu halkaas ay fadhiyaan waa u jeedaan odayga soo socdo dhabarka wax cad ku wata iyagu ma garan karaan uu ka fog yahay waxa uu dhabarka ku wato iyagu ma garan karaan dabadeedna wax dhacday qoloftii uu dhabarka ku watay Faarax Diinle buu idihii daaqayay buu ku dhex tuuray hab qoloftii uu ku dhex tuuray giliye hab qoloftuna cuf bay leedahay xogaa culays bay leedahay gab ma ku tiri idii waa kala xogaa bay kala firdhadeen oo kala durka kala carareen dabadeedna gabdhihii buu ku yiri adeerayaalow de halkaas oo kale fadhiyaan moogta waa u dhawaaqaya xogaa buu u dhawaaqaya adeerayaalow saydeen adeer markaas yiri xoolo baadiyaan raadinaya baadi ma haysaan sawaxdeen maya baadi ma hayno suyiri wanka aan ku tuuray idaha ku dhex tuurtay wanka ii fiiriya waxaan xoolaha degsiimooyinka kale aan waxaan soo weydiinayaa inay xoolo baadiyo iga dhumay baan degsiimooyinka kale soo weydiinayaa wanka ii haya waa qolof wuxuu ku dhex tuuray idaha gabdhahana wuxuu uga dhigayaa inuu wan dhabarka ku watay wan caadiya oo idaha uu ku dhex daray wuxuuna gabdhaha ku leeyahay waa idiin soo laabanayaa degsiimooyin waxa la yiraahdaa deriska isku dhowdhow ee reer baadiyaha deriska say magaalada derisku isku dhowdhow baa reer miigana degsiimo loo dhahay degsiimooyinka isku dhowdhow marka wuxuu yiri degsiimooyinka kalaan xoolo ka soo fiirsanaya iga dhumay oo baadiyo iga dhunta ka soo fiirsanaya wanka iisi haya markaas gabdhihii waxay dhaheen adeerow dadkii hore xooliya aan u haynay baanu hayn weynay dadkii kale to xooliya aan u haynay ee dhaheen noo haya baa naga batoon hayn weynay wankaaga qaado gabdhuhu waxay u malaynayaan in meesha wan lagu tuuray waana maxaa la diin qoloftiis baa lagu dhex tuuray oo cadaatay gabdhuhu way arkayeen wax cad inuu meesha ku dhex tuuray waana ka fogiin moogta markaas gabdhuhu wax ku dhaheen adeerow wankaaga maxaa la yiraahdaa adeerow baadidii hore aanu hayn weynay wankaaga qaado kadibna ninkii Faarax Diinlaha
idihiiba ku dhex jira laba tiro oo idaabu ku dhex jira labadii tiro buu hal wan ah oo xoog weyn oo intuu la egyahay ayaabaysid buu qaatay oo dhabarka saarsaday oo halka kala baxay iyagoo u jeedo halka kala baxay iyagana waxay la tahay wankii uu watay inuu sii qaatay wana ma wadan qoloftii uu meesha ugu tuuray hadhow gabdhuhu markay idii ay dabceen Soofiyaan ay xaafadii geeyaan oo Soofiyaan ba wax arkeen inuu wan meesha yaal kadibna aaboodba u sheegeen waxa ku dhacday markaas yiri kaasi faarax waa ninkaasi faarax diilu aabalay marka nimanka faarax la yiraahdo niman sahla ama ha sheekadaas sheeka aqli iyo xigmad iyo qosol badan ku jirto bay oo kaarta badan ay ku jirto aad baan kaaga mahad celinayaa inaad daawatay jaalayaal iyo joohradooyin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku codsanayaa inaad channelka subscribe saadaan haddaad nagu cusubtiin fiidiyoga like ina saartaan fiidiyoga ka laftirkiisa inaad ku share garaysaan gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook oo asxaabtiina gaarsiisaan wada shaqayn wacan waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin intii dhimatay Ilaahay ha naxariisto annagana ha nooga daba naxariisto waxaan ku celinayaa hal ku dhigi TV-ga aan u sameynay oo ahaa waa dhag oo dhameystiran Dheeman TV waa dhag oo dhameystiran Dheeman TV intaynu ku kulmayno fiidiyoo kan oo kaleeta waxaan idin leeyahay salaamaad kullu aafaat waa dhag oo dhameystiran Dheeman TV